khiyaarta hawada naga dhageysanaysa waa mar kale iyo barnaamijkeeni wararka qodobadan idinku hayana waxa kamid ah boqor buurmadow oo sheegay taariikhdii hore inaan habar jeclo ciidagale suldaan u ahayn ee uu suldaan muuse yuusuf loo odhan jiray suldaan u ahaa waxaanu sheegay inaanu nin loo hanjabi kara ahayn Somaliland oo laga yaabo in la aqoonsado ayaamaha soo socda sida wararka caalamku sheegayaan ee warbaahinta dunida lagu baahiyay fanaanka Khalid Kamil oo sheegay inaan showgiisa $500 wax ka yar lagu galay iyo sababaha uu ku doortay $500 in showgiisa lagu galo oo su'aal laga weydiiyay daawadayaal halkan nagala socotaan waa Kennedy Media ani waa buwan Kennedy barnaamijkeeda la socodsiinayay fadlan hadii muuqaalkan ku soo gaaro share gare YouTube kana subscribe to saar haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan dewan maqlay hadalla badan oo leeyahay dhul baad ku dhul ciyaaraya buurmada ku ciyaaraya hanjabaado iyo dadaan isu hanjabi jirin markay isu hanjabaan iyo waxaan ku sheegay inaan ku sheego suldaanu iyo baaqtay balidi leeyahay waxaan doonayaa inaan ku sheego anigu waxaan kamid ahaa salaadiin muddo ka hor qolob boqor lahaan jirtay oo boqor soo jireen waqti hore lahaan jirtay oo nooti boqorkayga waan dhisayna inaan la baarigno qoladii kaashaas 8 bilood ka hor baan hadlay 20 suldaan oo isaaq oo dhan leh oo Somaliland oo dhan baan ku dhex jiray ilaa hadda waan daabanayaa waan yaabanahay dalisho igu socota iyo carabka leela dhacay iyo maagay hanjabaada iyo wali halkii ka socoto laakiin waxaan go'aansaday inaan ka hadlin bilaan dalkiisa laana waxa weeyaan dewan maqlay hadalla badan oo leeyahay dhul baad ku dhul ciyaaraya buurmada ku ciyaaraya hanjabaado iyo dadaan isu hanjabi jirin markay isu hanjabaan iyo laakiin odaynimadu waxay faraysaa horta reerka kan anagu intaas suldaan baan habar jeclaan garxajis intaas uu leeyahay arab intaas uu leeyahay marka leeyahay reerkani ma samaysan karaan tul jeclo minis madadaan u qalmin karin hadda salaadiin bilay ilaa hadda intaan ogahay ma saddex baa mise laba ayay leeyihiin ugaas iyo suldaan bay leeyihiin iyagii baa wada oo kana wada waxayladii hore saldanada lahaan jirtay bay yiraahdeen oo noo keeneen waa saldanadan taariikhdooda anuna Soomaali taariikhdooda wax badan maraya waxna ku sheegay haday tahay wax aan gar ahayn lagu hadlo mushkiladeeda anaga saldanadaha waxaan doonayaa inaan ku sheego garxajis markay noqoto intii ugu horeeyay suldaan noqdaa wuxuu ahaa suldaan suuli caan badan may noqon guuleed cabdi ciise ayaa ku xigay waxaan waqti la ahaa oo isku sanad noqdeen diriya suuli suldaan diri waligood mid ictiraafiye ma jirin diri iyo guuleed ma isku oran jireen waa taariikh la yaqaan waa taariikh kaftan leh isma ictiraafi garxajis baan is ictiraafi waxa ugu dhaw arab iyo isxaaq ugu jiro mid damay xukumin saldanada waxa ugu horeysay suldaan maxamed cabdi qaadir shirkii carta ayuu sheegtay suldaanka guud ee Somaliland haday tahay uguma horeyso isaaq haday tahay uguma horeyso hadii taariikh been laga sheekaynayo laakiin waa halkeeda nin kale hadii la baleeyay hadaan raado daadeer suldaan kaali baa la oran jiray suldaanadu hadaanay dadkeeda u shaqeyn waxaan ku sheegayaa hadda dawladda deegaanku waxay nasiisay gobol bay bixisay gobolkii intayada isaaq ah oo dhan waxaan isku raacsanahay gaashaamo caaqil jaambiir iyo suldaanka iyo intay tageen bay aadeen hal geeyay awaar hal geeyo reer isaaq loo geeyay dagaalkii dawacyo taagana 250 nin oo geeriya oo halkan la dilay ayay tageen aadeen kabahan afka ku soo qaaday aniga personally waxaan filayaa waxa la iga cabanaya waxa weeyaan Allahu naxariisto suldaan maxamed iyo inankiisa kan suldaan daawud labadaba af xumar badan baa iga timi eedayn badan baa iga timi waliba aan ogeysiiyay caaqilka iyo cadde guday inta baan warjarka igala hadla midna kama jawaabin midna eedooda kama jawaabin anigu waxaan leeyahay haday tahay taariikhda suldaankana markaas suldaan guuleed la sameeyay suldaan diiriyana ay wada shaqeynayeen wada joogeen oo aan mid ixtiraafsaneen anaguna suldaan muuse yuusuf baa suldaan noo ahaa anaga ciidan galan oo ma noqon habariyeen noo noqon waliga wax isma darsan isaaq nin walba suldaan bula aniga maxay joojinayaan ciidan galan haday aniga joojin karaan aniga soo reerkaygu ma dooran maxay joojin karaan laakiin iyaga sababta leeyahay ciidan galan tulshacada ma jirto sidii u leeyihiin u buuqayaan iyaga taas u taala iyo haday ay amarka u hoggaansamayaan laakiin waxaan anagu aaminsanahay hada rabshad ma baahan buuqan uma baahan haday gar wax noo sheeganayaan anagu gefka galay salaadiinta iyada suldaanka dhisay waxaan diyaar u nahay inaan gogol dhigno aan isu soo fariisano ka wada hadalno inaanu ka garanno wixii dhexdayada waxay gaar u leeyihiin ciidana ka qaadi mayso ciidana u diidi mayso ya xaaladana in aan la isu hanjabin hadii la hebel ma qaban karayo hebel ma qabsan karayo hebel ba dab ku furnayo buur baan soo haraatiyaya ninaan buur haraatiy karayn inuu buur baan haraatiyada lama baano saddexdii darajo way iibsameen walow ay ugu badnayd ba 500
marka la shooyo la qabanayo dadku lacaga qiimo jaban oo ay awoodi karaan lagu qabto adigu waa maxay sababta aad ku dooratay in showgaaga lagu galo $500 ugu horreyn aad iyo aad baan idin salaamay dhammaantiin halkan waxaan isugu kin yeedhay inaan idinku baraarujiyo bandhigeennii albanka inuu yahay habeen dambe kana dhacayo cali jirde intaas waa xasuusin waxaan kaloo idin ogeysiinayaa idin sheegayaa oo aan sharaxayaa albanku inuu qaatay waqti badan oo aan gelinay juhdi iyo dadaal 2025 sidoo dhammaan waxaan ka shaqeynayay albankaas aniga iyo asxaabtayduba hadii abwaanida tahay hadii musicianada tahay iyo hadii tahay farsamo yaqaanadaba waxaan ka shaqeynaynay albankaas oo habeen dambe aan soo bandhigi doono waxaan nasiib yeeshay dadka kooban ee bulshada ka midka ah ee habeen dambe ka soo qayb gali doona inta aan habeen dambe nasiibka u yeelana waxaan u sheegayaa ogeysiinayaa inaan soo bandhigi doono albanna kale oo ama hargeysa gudaheeda ha ama magaalooyin kale ha ahaadaan aan ku soo bandhigi doono waxaan ka dhici doonaa habeen dambe cali jirde waa xasuusintaas way Khalid Kamil isaan la wada socono showgaaga ama bandhigaaga albanka cusub waxaad shaacisay qadar lacageed oo dhan $500 Mareykanka lagu gali doono haddaba dadkii ma ku galaan $500 oo tigidhadii ma kaaga iibsadeen haddii laga iibsadeen dad intee leeg ayaa ka iibsaday horta waxaan daabacnay in yaro kooban sidaan sheegay oo dad kooban baan ugu talagalay inay ka soo qayb galaan waxaan u ahaa sidaad sheegtay 3 darajo ayuu ahaa oo 3 darajo uu iibsameen walow ay ugu badnayd ba 500 waxaad tahay fanaankii ugu horreeyay ee Hargeysa ama deegaanada ay Soomaalidu degto $500 maaha lacag yar in wax weeyaan showgiisa ama albankiisa lagu galo taas maxay kaaga dhigantay wallahi waxay ka dhigantay dhiirigelin bulshadana waxay uga dhigantay fanka taariikh waxaan sheegayaa halkan aan sii raacinayaa in aan soo bandhigi doono albana kale oo 1,000 iyo 2,000 ba gaari doono oo waran ku soo dhaweynaya fanaan waxaad sheegtay in lagu galayo showga $500 waxaan ognahay in marka la shooyo la qabanayo dadku lacaga qiimo jaban oo ay awoodi karaan lagu qabto adigu waa maxay sababta aad ku dooratay in showgaaga lagu galo $500 taa ujeedkeedu wuxuu ahaa inaan soo noolayno fankii maxay yahay qaabkii loo soo bandhigi jiray riwaayada la soo bandhigi jiray oo maxay yahay iyadoon hore loo arkin qiimo kasta ha ahaadana lagu soo geli jiray in badan ma dhicin muddo badan ma dhicin masrax noocaas heesa cusub ama wax cusub in lagu soo bandhigo muddo badan ma dhicin marka inaan taa dhiiri gelino oo aan dib soo cusboonaysiino ayaa keentay inaan arrinkan ka shaqeyno saa qiimahan gaarsiino dadka ku soo galay $500 ma heesa cusub baad haysaa ma guuy horu baad u qaadaysaa maxaad fanaaniinta kale kaga duwantay waxaanu kaga duwanahay waa alban cusub oo aan dhagaha bulshada marna baan hore u soo gaarin hal hees oo kamid ah aan hore u soo gaarin heesaha waxa kamid ah heesta aan ugu magac darnay albanka ciladaha jacaylka habeen dambe ka dhiganaa kuwaagii hore ma asxaabta ugu tuur sidii jiriga baxaad naftayda ku beeran tahay bartuudhigaygu maro adaa bartankeeda digi bartuudhigaygu maro adaa bartankeeda digi waa inoo habeen dambe waxaan heestan waxaan soo qaadanaynaa in heesta iyo qaar la qiimo ah iyo qaar kasii qiimo badan baan soo bandhigi doonaa habeen dambe idinka mudan 35 sano kadib Somaliland ayaa rajadii ugu weyneed ka qabta in dhammaadka sanadkan ay hesho aqoonsi caalami ah oo rasmi ah waxaa si weyn u soo kordhay hadalhaynta warbaahinta caalamka iyadoo warbixino badan oo ka imanaya Yurub Mareykanka iyo Bariga Dhexe ay sheegayaan in dalal badan ay diyaariyaan galka aqoonsiga Somaliland taas oo astaan u noqonaysa isbedel siyaasadeed oo muhiim ah kalsoonida madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa gaadhay heer aad u sareeya taas oo uu si cad ugu muujiyay kulamadii ugu dambeeyay ee uu la yeeshay madaxda caalamka ururada bulshada maxalliga ah madaxda xisbiyada iyo khudbadihiisii ugu dambeeyay ee uu jeediyay warbixintan waxaynu diiradda ku saaraynaa hadalhaynta cusub ee caalamka warbixinadii ugu dambeeyay ee la xidhiidha arrimaha aqoonsiga iyo sababaha keenay in xilligan ay kor u kacdo rajada madaxweyne Ciro taasi oo noqotay mid si weyn looga dareemay gudaha iyo dibaddaba waxaynu ku bilaabaynaa kulamada madaxweynuhu ku soo qaaday arrintan iyo kalsoonidiisa siyaasadeed ilaa xogwaalaha ayaa miisaan u sheegay in madaxweyne Ciro uu kulamadii ugu dambeeyay ee uu la yeeshay madaxda xisbiyada mucaaradka ah iyo qaybaha bulshada rayidka ah uu ku cadeeyay in dhammaadka sanadkan ay suurtagal tahay in dalal badan oo caalami ah ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan aqoonsiga Somaliland sida la xaqiijiyay hadallada madaxweynaha waxa ka muuqatay kalsooni sare iyo rumayn buuxda oo uu ka qabo inuu yahay hogaamiyihii ugu horeeyay ee dalkiisa gaarsiin kara himilada 35 sano jirta ee ah aqoonsi caalami ah oo Somaliland ka hesho dunida inteeda kale xoguhu waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in xukuumaddiisu ay diyaarisay qorshe istiraatiiji ah oo lagu kasbanayo madaxda caalamka laguna sharaxayo qadiyadda gooni istaaga Somaliland iyo xaqa ay u leedahay dawladnimo madax bannaan haddii aynu eegno dadaalada diblomaasiyadeed ee madaxtooyadu ay gashay inta la og yahay madaxweyne Ciro ayaa 17 May ee sanadkan maalinta qaran ee 18 May waxa uu dhambaal rasmi ah u diray in ka badan 120 dal oo caalamka ah qaar ka mid ah dalalkaasi waxaa si toos ah loo gaarsiiyay fariimaha halka kuwa kale loo mariyay safaaradaha dalalka dariska ah ama ururo iyo xubno gaar ah oo xidhiidh dhow leh guryaha looga taliya dalalkaas tusaale ahaan
maraykanka waxaa socdaal ku tegay wasiirro iyo xubno culus oo ka tirsan xukuumadda Somaliland si ay kor ugu qaadaan ololaha diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu helo aqoonsi rasmi ah. natiijooyinka hordhaca ah ilaa hadda la gaadhay waxaa ka mid ah sida ay xoguhu sheegayaan 17 dal oo ka mid ah kuwii la gaadhsiiyey dhambaallada ayaa bixiyey warcelin toos ah intii lagu jiray socdaalkii madaxweynaha ee Imaaraadka. waxaa la sheegay in xidhiidho toos ah lala sameeyey dalalkaas iyadoo oo la iswadaarsaday dhambaallo cusub iyo wadahadallo hordhac ah oo si aanba qaadaya codsiga aqoonsiga Somaliland. warbaahinta qaar gaar ahaan kuwa bariga dhexe iyo xubno firfircoon oo isugu jira wariyaal iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa daabacay in ku dhawaad 20 dal ay diyaariyeen galka aqoonsi buuxa oo ay Somaliland siinayaan. faallooyinka qaar ka mid ah waxa ay tilmaamayaan in sababta ugu weyn ee Somaliland ay waqtigan u heli karto aqoonsi caalami ah ay tahay ku biirista heshiiska Abraham Accord. Abraham waa heshiis taariikhi ah oo la saxeexay sanadkii 2020 kaas oo ku saabsan caadiyeynta xiriir diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Israa'iil iyo dhowr dal oo Carbeed. heshiiskan waxaa si weyn u fududeeyay Mareykanka xilligii muddaxileedkii koobaad ee Trump. magaca Abraham waxaa laga soo qaatay Nabi Ibrahim calayhi salaatu wasalaam oo ay wada aaminsan yihiin Yuhuudda, Kiristaanka iyo Islaamku. xiriirkaasi waxa uu astaan u yahay wada noolaanshaha iyo xiriirka diimeed ee samaawiga ah ee ay wadaagaan qurumahani. heshiiskan markii hore waxaa ku jiray dalal ay ka mid yihiin Israa'iil, Imaaraadka Carabta, Bahrain, kadibna waxaa ku biiray Suudaan, Morocco iyo Kosovo. ku biirista Somaliland ee heshiiska Abraham Accord waxa ay noqon kartaa fursad istiraatiiji ah oo ay ku kasban karto aqoonsi caalami ah, iskaashi dhaqaale iyo mid amni. hase yeeshee waxay u baahan tahay xeelad iyo miisaan siyaasadeed si looga fogaado dhibaatooyinka la xidhiidha arrinta Falastiin iyo cadaadiska dalalka muslimka ah oo ay ugu horeeyaan ururka jaamacadda Carabtu. marka laga tago heshiiska Abraham Accord waxaa jira heshiis uu madaxweyne Cirro u bandhigay Mareykanka kaas oo ku saabsan maalgashiga macdanta qaaliga ah ee Somaliland. heshiiskan waxaa lagu bedelanayaa aqoonsi caalami ah. qodobkan laftigiisa ayaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay tallaabooyinka muhiimka ah ee madaxweyne Cirro ku beeray rajada weyn ee uu ka qabo aqoonsiga Somaliland. dhammaadka sanadkan kalsoonida madaxweyne Cirro waxaa sidoo kale muujinaysa wardhagoodka laga sheegay kulankii dhawaan ku dhex maray Addis Ababa isaga iyo Abiy Ahmed kaas oo la sheegay in madaxweyne Cirro uu ku gacan saaray heshiiskii badda ee Somaliland iyo Ethiopia oo Abiy u soo bandhigay Somaliland isaga oo meesha ka saaray shuruudda aqoonsiga. ballanqaadka madaxweynaha ee aqoonsiga gaar ahaan midka shacsanaha ka ah xafiiska madaxtooyada ee la filayo dhammaadka sanadkan oo ku beegan December waxa uu yeelan karaa laba waji oo saameyn leh. kan koobaad waa guul. haddii uu guulaysto madaxweyne Cirro waxa uu noqon karaa hogaamiyihii Somaliland gaarsiiyey aqoonsi caalami ah iyo nin dhaliyey goolka himiladii lagu taameeyey in ka badan 30 sano. iyo wejiga labaad oo khatartiisa wata haddii waqtigan cayiman la gaari waayo ama uu fashilmo waxaa laga yaabaa inuu lumiyo kalsoonida bulshada ee arrimaha aqoonsiga taas oo saameyn ku yeelan karta xawaaraha waxqabadka xukuumaddiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasiga ah. guud ahaan warbixinaha iyo isbedelada cusub ee socda waxa ay muujinayaan in xaaladda diblomaasiyadeed ee Somaliland ay gashay heer cusub. kalsoonida uu muujinaya madaxweyne Cirro, dhaqdhaqaaqyada xukuumaddiisa iyo xiisaha sii kordhaya ee caalamka gaar ahaan dalalka bariga dhexe, Mareykanka iyo qaar ka mid ah Afrika ayaa si dhab ah u abuuraya rajadii ugu xoogganeed ee Somaliland ay weligeed ka qabto inay hesho aqoonsi rasmi ah oo caalami ah.